kadib kulamo ay yeelanayeen muddooyinkii dambe guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb ayaa maanta shir jaraa'id ku qabteen magaalada Cadaado waxay ku shaaciyeen xilliga ay bilaabanayso qabashada araajida u tartamaha xilka madaxtinimo ee maamulka Xaman iyo Xeeb iyo xilliga ay ku egtahay gudoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee maamulka Xaman iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Maxamed Dagacade ayaa saxaafadu akhriyay xilliga ay bilaabanayso qabashada araajida u tartamaha xilka madaxtinimo ee maamulka Xaman iyo Xeeb iyo xilliga ay ku egtahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada ama qabanqaabada doorashada waxay soo saareen kadib shirkoodii qodobadan soo socda qodobka koowaad oo ah jaangoynta xilliga doorashada guddigu wuxuu iska la gartay in xilliga araaji qabashada musharaxiintu waxay ka bilaabanaysaa Sabti 25 bisha shanaad 2013 saacadu markay tahay 9 subaxnimo araaji qabashadu waxay ku egtahay Jimce 7 bisha 6aad 12 duhurnimo 2013 duhurnimo qofkii ka daba mara xilligaas kadib lagama qabanayo wax dukumeenti ah doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxay dhacaysaa Isniin 10 bisha 6aad 2013 dhinaca kale gudoomiyaha guddiga doorashada maamulka Xaman iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Maxamed Dagacade ayaa shaaciyay shuruudaha laga doonayo tartamayaasha madaxweynaha maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb shuruudaha looga baahan yahay madaxweynaha musharaxa madaxweyne ee maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb 1 waa inuu muslim yahay kuna dhaqmaa diinta islaamka waa inuu leeyahay aqoon diimeed iyo mid maadiya oo gaarsiisan jaamacad ama wax u dhigma waa inuu leeyahay waayo aragnimo dhinaca maamulka waa inaysan da'diisu ka yarayn 35 sano waa inuu leeyahay karti iyo hufnaan waa inuu sumcad fiican ku leeyahay bulshada dhexdeeda waa inuu deegaanka u dhashay waa inuu aaminsan yahay qaanuunka ay ku dhisan tahay Xaman iyo Xeeb hantina ku leeyahay waa inuusan isticmaalin muqaadaraad waa inuu ka caafimaad qabo cudurrada dhimirka iyo cudur kasta oo ka reebi kara gudashada hawshiisa shaqo waa inuu leeyahay akhlaaq suuban dulqaad iyo nabad jacayl waa inuusan xiriir la lahayn ururada hubeysan ee Soomaaliya waa inuu bixiyaa lacagta diiwaangelinta musharaxa madaxweynaha u tartamaya oo ah $3,000 Mareykanka waa inuu soo gudbiyaa CV-ga ama taariikh nololeedkiisa iyo dukumeentiyo cadeynaya aqoontiisa iyo khibradiisa waa inaan maxkamadi ku xukumin dambi ciqaabeed culus si kastaba ha ahaatee deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb ayaa xilligaani waxa ka jira dhaqdhaqaaq xooggan oo ku aadan u diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb Daahir Faarax Ahmed TV-ga caalamiga ee Kalsan Cadaado.